badda Soomaaliya oo indhaha dariska iyo caalamkuba hayay baryihii ugu dambeeyay ayaa ah biyo muhiimad weyn u leh caalamka haddii dawladda iyo dadka Soomaaliyeed ka faa'iideysan lahaayeen u go'aamadoodu saameyn ku yeelan lahaa dunida. Marinka Baabul Mandab calulada ay isku daba maraan markabada xamaala 12% saliidda caalamka iyo 8% gaaska dabiiciga ah ee la sifeeyay iyo xeebaha hodanka kuwa kheyraadka buluugan ayaa Soomaalida ka dhigaya kuwa saameyn dhaqaale iyo istiraatiijiba ku yeeshay adduunkan. Soomaaliya oo dareensan tabanyarideeda dhanka badda ayaa heshiis dhanka badda la gashay Cusmaaniyiinta Turkiga. heshiiskan oo ah mid difaaciya ka faa'iideysi dhaqaalaha badda ayaa loo saxiixay atraakta muddo 10 sano ah. Turkida oo dibudhis tababar iyo qalabaynba ku samaysa ciidamada badda ee Soomaaliya ayaa helaysa 30% dhaqaalaha laga helayo badda Soomaalida oo 500 milyan ku weysa kalluumaysiga sharci darrada iyo xatooyada. waxay sidoo kale lagu qiyaasaa dhaqaalaheeda gaaska iyo saliidda qayrin in ka badan 30 bilyan oo fuusto. Soomaaliya oo aysan ugu dareyn 70% dhaqaalahaasi ayaa durbaba heshiiska qalinka ku dugtay iyadoo Turkiduna dhankooda aad ugu riyaaqeen una soo dhaweeyeen. haddaba heshiiskan hirgelkiisa ayaa u muuqda mid sahlan iyadoo colaadaha biyaha Soomaaliya iyo kuwa dariskuba ay aad u sii xumaanayaan.